السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال أما دومينaa kubadda cagta ku xidhan xiiseeya maalinta khamiista waxaa runtii kulmi doona ama iska hor iman doona labada kooxood ee ugu faca weyn jamhuuriyadda Somaliland waa kooxaha Goodir iyo Gaashaan ciyaartaas waa ciyaar runtii taariikhiya waana derbiga ugu culus ee ciyaaraha Somaliland ciyaartaas haddaan in yar dul istaago labada kooxood taariikhdooda ciyaartoyda kooxda Goodir waxaa hogaaminaya oo gudoomiye u ah ciyaaryahankii weynaa ama weeraryahankii weynaa kooxda MBB iyo isla kooxda Goodir ee Dito isla kooxda Gaashaan idana waxaa horkacay oo gudoominaya ciyaaryahankii weynaa ama weeraryahankii weynaa kooxda NDC isla markaana kooxda Gaashaan ee Idi Jibriil sidoo kale kooxda Goodir waxaa macallin u ah oo tababara u ah ciyaaryahan Jamaal Jante oo runtii kamid ah ciyaartoydii kooxda Goodir sidoo kale macalinka kooxda Gaashaan isla waa Cabdi Muuse oo isla kamid ahaa ciyaartoydii kooxda Gaashaan sidoo kale waxa iyaguna labada kooxood calaamada kabtanada u xidhan ciyaaryahanada gacantooda aan laga waayay kabtanada ciyaaryahan Cabdiraxmaan Alkacase oo ah kabtanka xulka gobolka Hawd isla markaana kabtanka kooxda Goodir sidoo kale kabtanka gobolka Maroodi Sheekh Cabdikariim Guji ayaa isaguna kabtanka kooxda Gaashaan haddaba ciyaartaas oo runtii ciyaar aad loo wada sugayo ahna ciyaarta runtii maanta lagu saadaalin doono horyaalku sidoo noqon doono ayaa waxaa ka hadlay ciyaartoydii hore labada kooxood ee dunida dacalada ku kala nool haddaba aynu eegno bal ciyaartoy walba sida u taageeray kooxdiisa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa marka hore mahad iska leh ilaahay baa mahad iska leh oo u sugnaatay sharaf iyo isii karaamo marka labaad waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan inta muuqayga iyo magacayga taqaana anigu magacayga waa liibaan maxamed nuux liibaan toti waxaan deganahay dalka Sweden marka waxaan jeclaystay inaan ka hadlo waxaana ka mid ahaa intaan waxba ka hadlin waxaan ka mid ahaa ciyaartoygii ciidanka qaranka Gaashaan gobolka Maroodi Sheekh marka waxaan rabaa inaan ka hadlo ciyaar ay ku kulmi doonaan labada kooxood ee Gaashaan oo ciidanka qaranka ah iyo Goodir oo ah ciidanka booliska marka Goodir iyo Gaashaan waxay soo wada mareen taariikh dheer waxaanu soo wada ciyaarnay muddo dheer waxaanu kulan badan kusoo wada qaadanay Hargeysa walow ay ahaayeen koox aad iyo aad u wanaagsan tayo leh xifaalta naga dhexeeyo waqti badanna koob badanna aan soo kala qaadnay waan ku ammaanayaa xaqiiqatan laakiin marka loo eego Gaashaan ama xulka ciidanka qaranka Gaashaan xulka kubadda cagta ciidanka Gaashaan waxaanu ahayn koox mugweyn yacni taariikh iyo tusaale kubad wanaag ku leh mandaqada dhexdeeda marka loo eego Somaliland Hargeysa marka ciyaar baa dhici doonta insha Allah weekan soo socda maybe inay khamiista tahay ayaan filayaa marka haddii anigu aan fikirkayga ku cabiro waa ciyaar aad iyo aad u muhiima waa horyaal walow ay Goodir ciidanka booliska Goodir ay hogaaminayaan ama ay yacni ka dhibca badan yihiin Gaashaan haddana ciyaarta ay ku kulmayaan Gaashaan iyo Goodir waxay ila tahay inay noqon doonto ciyaar la wada sugayo ciyaar muhiima ciyaar haddii ay Goodir badiyaanna ay natiijo fiican ka gaari doonaan horyaalka ama ay u dhowdaba inay qaadaan iyo haddii ay Gaashaan badiso inay Gaashaan u tahay ididiilo
oo ay hal meel sare soo gaari doonaan. Midda kale ciyaarihii ugu dambeeyey ee ciyaareen gaashaan waan daawaday, waayo ciyaarihii ugu dambeeyey way badanayeen. Horta haddii aan taariikh ahaan ka waramo, gaashaan waxaan doonayaa oo keliya inaan midun idhaahdo oo keliya, dee haddii ay gaashaan taariikhdii hore ee ciyaartooygii magacan gaashaan huwana ay xusuusan karaan inay sidoodii iyo magacan ay huwan yihiin ay ku fikiraan, ay magacan kor u qaadaan. waayo annagu waqtigan ciyaaraynay dee booliiska ciyaaro badan baan ka badinay, iyagana way naga badiyeen, been maaha. laakiin marka ciyaaraha laisku eego waxaan filayaa annagu dee goodir waanu ka adkayn, anoon waxba qarinin. wallahi goodir waanu ka adkayn, waayo gaashaan waan ka taya ficnayn booliiska, waan ka ciyaar ficnayn, waan dee amaha naga badin amaan ka badino, laakiin inta badan waxaanu ahayn koox jecel markasta inay ka guulaysato goodir, wayna dhici jirtay. marka waxaan leeyahay magaca gaashaan maanta idinkaa sitaa, ciyaartooyga ciyaarayo magaca gaashaan idinkaa maanta huwan. marka waxaan idinkula dardaarmayaa magacii halyeeyadii hore ee kubadda soo ciyaari jiray ay dee idinka tegeen inaad kor u qaadaan. marka waa idinkaa, waxaa inoo ballana gol iyo gobonimo. bye bye. بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan halkan doonayaa inaan taageero mug leh aan uga muujiyo kooxdayda goodir oo maalinta khamiista la ciyaari doonta kooxda gaashaan. waxaan rajeynayaa kooxdayda guul insha allah iyo in ay hogaanka horyaalka sii adkaysato ilaa inta aynu ka qaadi doono insha allah. garabkiinaan taaganahay, taageero weyn baan idii ahay kooxdaydii. waxaan xoog u salaamayaa macalinka kooxda jamaal jante iyo kabtanka kooxda cabdiraxmaan ilkacsi iyo dhammaan kooxda intiisa kale. insha allah waxay noo balana maalinta khamiista iyo guul. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo magacaygu uu yahay liibaan ibraahim cabdiliibaan hallaasi, uuna ila fadhiyo wiilkayga khaalid liibaan ibraahim. waxaanu halkan hambalyo uga diraynaa amaba dhiirigelin kooxda goodir oo dhigeeda gaashaan la ciyaari doonto maalinta khamiista ah. ciyaar aada u xiiso badan oo la wada sugayo, annaguna aanu shaashadaha ka daawan doono. waxaan halkan taageero uga ahay kooxda goodir oo ah kooxdaydii hore. waxaan gooni khaasatan aan aada ugu hambalyeynayaa tababare jamaal oo kooxda aada wax uga bedelay. kooxdan ay la ciyaarayaana dee koox la oran kara maaha, waa koox yar maaha, waa koox aada u mug weyn oo waqti badan aan isla soo qaadanay ilaa haddana jirta. waxaan leeyahay hasdhiganina, dhibcaha aad ku hogaaminaysaan inaad ciyaartaa badisaanna waa natiijadiinay ku xiran tahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillahi raxmaan raxiim. waxaan doonayaa in kolley kilibka yaraan soo duubay inaan ku gunaanado insha allah. dhiirigelin xoogan aan u muujinaya kooxdeedii gaashaan, taasoo ahayd kooxaha dee kuwii ugu quality-ga wanaagsanaa. kooxdana la ciyaaraysana waa kooxdii inta badan hirdum ka dhexeeyey, hadday noqoto xagga xilfaantanka iyo xagga maxaayade koob hanashada. marka waxaan odhan lahaa kooxda gaashaan inaan u muujiyo hiiliyaho, aan dhiirigelin badan siiyo. waxaa leeyahay sanadkaa maanta ah waa inaad koobo badan baanu dee qaadnay, waa inaan koobo kanaan kusoo darno insha allah. haddoo laydhaa dhiirigalo badan baanu muujinayaa. de waxaan leeyahay akhlaaq wanaagsanaa, haddaan xitaa laynaga badiyo, haddaynu gaashaan nahay waa inaanu xitaa kubad wanaagsan soo bandhigno. taasaa ballanteenu nahay. marka kolley anigu mar walba guuldarra haddaan maqlo waan ka naxaa. marka waxaan kolley raajicinayaa insha allah kubad wanaagsan iyana koobkana hanano insha allah. haddoo laydhaa haddaa laynaga badaniyana waanu ahnayna haddoo laydhaa, laakiin dee bal ku dadaala inaad koobka isagaa soo hanataan. guul baan idin leeyahay mar 1 iyo 2 toona. marka insha allah dee intaas baan kusoo koobi lahaa insha allah haddoo laydhaa. mar walba
waan idinla garab taaganahay hadday guushaad gaadhaan iyo inaan soo dardargeliyo meesha ku jirta ayana marka magacii aan huwaninu baad iduguna huwantihiin insha allah waxaan leeyahay aad iyo aad qurux badan usoo bandhiga haddaa la dhahan labadiinuba kolley nasiibkuna waa halkiisa laakiin waxaan leeyahay bal 100% insha allah haddaa la dhahan inaad korka hanataan baan ku rajo weyn haddaa la dhahan marka insha allah saasaan kusoo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa maanta inaan kilibkan uga faa'iidaysto ciyaarta weyn ee qiimaha leh ee dhex mari doonta ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland ee booliska iyo ciidanka qaranka. ciyaartaas oo noqon doonta runtii ciyaar weyn oo go'aamisa cidda sanadka noqon doonta horyaalka. waxaan doonayaa maanta labada kooxood inaan ku dhiirigeliyo inay noqdaan laba kooxood oo tusaale u ah ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan kubadda cagta. waxaa loo baahan yahay in laynu kaga daydo akhlaaqiyan iyo ciyaar wanaag iyo dulqaad. waxaa si gooniya halkan aan uga rajaynayaa guul inay gaadho kooxdeedii Goodir oo runtii muujisay inay tahay koox tartamaysa una qalantay inay sanadka horyaal noqoto. sidoo kale waxaan u rajaynayaa inay ku dhammaato ciyaar qurux badan oo nabadgeliyo iyo xasilooni inay ku dhammaato. sidoo kale saxaafadda dhammaanteed oo runtii isku xilqsaantay inay mar walba nala wadaagaan ciyaartan. waxaan leeyahay idinku waad mahadsantihiin. waxaan dhammaantiin noo rajaynayaa ciyaar wanaagsan iyo daawasho wanaagsan iyo FC Goodir guul insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.